السلام عليكم. barnaamijkeena maanta waxaynu ku daahqaadaynaa taariikhda dowladdii Umayyadeed iyo sidoo kale furashadii Islaamka ee Andalus, dhulka maanta loo yaqaano Spain iyo Portugiiska. khilaafadii Umayyadeed waxay ahayd imbaraatoriyadii ugu weyn ee taariikhda Islaamka. manay soo marin caalamka dowladda Islaamiga oo ka dhul weyn khilaafadii Umayyadeed. dowladdii Umayyadeed waxay jirtay intii u dhaxaysay 661 ilaa 750 miilaadiga, waxaanay xilligaa ahayd imbaraatoriyadii ugu awoodda weyneyd caalamka oo dhan. waxay xukumi jireen inta u dhaxaysa laga soo bilaabo xuduudka Shiinaha ilaa qaybo ka mid ah Faransiiska, waxaana caasimadu ahayd magaalada Dimashq ee dhulka Shaam. sidoo kale waxay xukumi jireen wadamada dhaca jasiiradda Carabta iyo waqooyiga Afrika. khilaafadii Umayyadeed waxaa aad loogu xasuustaa furashadii Andalus, waana dhulka maanta loo yaqaano Spain, Portugal iyo sidoo kale qaybo ka mid ah Faransiiska. sanadkii 711 miilaadiga kuna beegan 290 hijriyada, ciidankii khilaafada Umayyadeed ee waqooyiga Afrika waxay u tilaabeen dhinaca xuduudka Andalus, waxaana hogaamiye looga dhigay in lagu magacaabo Daariq bin Siyaad oo asal ahaan ka soo jeeda qabaa'ilkii Barbaraska ee deganaa waqooyiga Afrika. dagaaladii furashada Andalus waxay socdeen ilaa 725 miilaadiga, waxaana dhulka la dhigay dowladdii Qowtiyiinta ee xukumi jirtay Spain. sagaaliyo 10 Julaay ee sanadkii 711 miilaadiga kuna beegan 290 hijriyada, ciidankii Daariq bin Siyaad iyo dowladdii Qowtiyiinta Spain waxaa dhex maray dagaalkii ugu qadhaadhaa, iyadoo dagaalkaasi xun loogu jebiyey xukuumaddii Qowtiyiinta ee ka tirin jirtay Andalus. intaa kadib ciidankii khilaafada Umayyadeed ee waqooyiga Afrika waxay ku sii fideen gudaha dhulka Spain, waxayna furteen magaalooyinkii waaweyn ee Andalus sida Shifiiliya, Malaga, Granada, Valencia iyo dhammaan magaalooyinkii Spain. marka laga reebo magaalo xeebeedka Barcelona oo ilaalo ka helaysay xukuumaddii Faransiiska. laakiin waqti aad u dheer oo ku beegan 250 sano kadib duulaankii Andalus ayaa la furtay gobolka Catalonia. dadkii ku noolaa Andalus waxay u kala qaybsanaayeen 4 qaybood oo waaweyn oo kala ah carabtii ka timi Xijaas ama Yaman, qabaa'ilkii carabta ee ka yimid dhulka Shaam, qabaa'ilkii Barbaraska ee waqooyiga Afrika, iyo sidoo kale saqaalifadii reer galbeedka. sanadkii 1422 miilaadiga, dowladdii Islaamiga ahayd ee ka tirin jirtay Andalus waxay u burburtay 22 dowladood oo midka kale ku duulo cadowna la yahay, waxaana u suurto gashay inay mar labaad Iberia ku dhacdo gacantii Masiixiyiinta bilowgii qarnigii 14aad. ومحمد كان أمير الركب يقود الفوز لنصرتنا، إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا.